Our engineers, I'm James Barty in Washington, hoping that you will have a wonderful week. Direct from Washington, the voice of America, VOA. halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo Isniina 8 bisha Febraayo sanadka 2021 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo Washington waa 10:00 habeenimo idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. محمد عبد الله فرماجو مدحونا جمهورية أيوها 8 فبراير 2017 إلى 7 فبراير 2022 حلكيسي واتماضي مسؤول ومعها مانتا جمهورية فدرالك الصومالي يدك الصومالي انتبه وقتي دورتين كو كراميين كو شرفين لو ديبي حلقيسي انت جري وطننا مقرب لأين منحومان لأين kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya kana mid ah midowga musharaxiinta Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale ee idaacadeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee magaalada Muqdisho kadib kulamo siyaasadeed oo xalay ka dhacay soo galootiga Jarmalka oo u loolamayo hoggaanka hay'ad isku xirta iyaga iyo golayaasha deegaanka dalkaasi iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka waxa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur. mahadsanid Falastiin. 3 dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya oo wajahaya xukun dil ayaa la sheegay in loogu bedelay min 10 sanadood oo xariga sida ay sheegeen guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Sacuudiga. wiilasha la xukumay oo magacyadooda lagu sheegay Cali Al-Neymar, Daawud Al-Marxuum iyo Abdullah Al-Siheer ayaa si gooni-gooniya loo soo xiray intii u dhaxaysay sanadihii 2011 ilaa 2012. wiilasha ayaa la sheegay inay ka soo jeedeen shiicada laga tirada badan yahay ee reer Sacuudi waxaanay markii la xidhayay da'doodu u dhaxaysay 15 jir ilaa 17 jir. guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay inay ku doodayaan in dhalinyaradaasi xabsigooda laga jaro muddadii ay xidhnaayeen si xabsiga looga sii daayo ugu dambeyn sanadka 2022. waalidiinta dhalay inamadan dhalinyarada ah ayay qaarkood barta Twitter-ka ku soo qoreen inay ku faraxsan yihiin maadaama wiilashoodu ay ka baaqsadeen xukunkii dilka ahaa ee markii hore la saadaalinayay in lagu fulinayo. dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa la sheegay in axadii shalayto ay haweeney ugu dhimatay xanuunka Ebola oo mar kale dib ugu soo noqday dalkaasi. kaysaska xanuunka Ebola ayaa dib loogu arkay dalkaasi oo 3 bilood ka hor la shaaciyay in fayraskaasi laga cirib tiray gudaha dalka. haweeneyda xanuunka u dhimatay shalayto ayaa la sheegay in ninkeedu uu ka badbaaday xanuunkan oo muddo u jiifay. hay'adda UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay xalayto ku sheegtay in xanuunku uu dib ugu soo labakacleeyay kadib markii la xaqiijiyay in haweeneydan oo 42 jir ahayd ay u dhimatay xanuunka oo ay toddobaadyo uun qabtay. UNICEF sidoo kale waxay sheegtay in xanuunkani sanadkii 2020 ku dilay dalkaasi in ka badan 55 qof balse bishii Noofambar ee dabayaaqadii sanadkiina dhaafay lagu dhawaaqay in xanuunka Ebola aanu ka jirin dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. mahadsanid Sahre Ciidla Nuur. waxaa dhamaanaya muddaxileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana xalay kulamo siyaasadeed ka dhaceen magaalada. warbixintii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabduqaadir Maxamed Cabdulle. kulamada siyaasadeed oo lagu lafaguraya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ismarwaaga doorashada ayaa si weyn looga dareemay xalay Muqdisho. kulamada qaarkood ayaa soo gaara xalay waqti dambe waxaana mashquul weyn laga dareemayo hoteelada ku yaal Muqdisho gaar ahaan kuwada siyaasadda lagu lafaguro guryaha ay degan yihiin madowga musharaxiinta iyo guriga gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal. madowga musharaxiinta ayaa guriga Muqdisho ka degan yahay gudoomiyaha golaha shacabka xalay waqti dambe ugu tagay
eela ku dhow madowga musharaxiinta ee gudoomiyaha golaha shacabka ayaa u sheegay VOA inay ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed gaar ahaana ismarwaaga doorashada iyo mudakhileedka hadda dowladda Soomaaliya. eela ku dhow madowga musharaxiinta ayaa u sheegay VOA in gudoomiye mursal ay u sheegeen in xalay waqti dambe ay ku ekeyd mudakhileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidaas darteedna aysan u aqoonsaneen inuu yahay madaxweyne. madowga musharaxiinta ayaa kala hadlay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal talada la xiriirta meesha laga aadayo waqtiga idlaada iyo go'aanka doorashada iyo ismarwaaga siyaasadeed. eela ku dhow gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal iyo madowga musharaxiinta ayaa u sheegay VOA in waxyaabo ay kala hadleen gudoomiyaha golaha aysan la isku afgaran oo kulankoodu ku soo dhamaaday isfaham waa. waxaase waqti dambe xalay mar kulanka soo ilaaday kadib Muqdisho war-saxaafada ay ka soo saareen madowga musharaxiinta ay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka, waxayna ugu horeyntii ku dul istaageen in mudakhileedkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku ekaa xalay saqdii dhexe 8 bisha February, sidaa darteedna 2028 February ka dambaysan u aqoonsaneen inuu yahay madaxweyne Soomaaliyeed. waxay sheegeen madowga musharaxiinta inay ku baaqayaan in la sameeyo golo qaran kuwaasoo xubno ay ka noqonayaan gudoomiyaasha labada aqalka sare ee golaha shacabka, madowga musharaxiinta ee qaybaha bulshada. sidoo kale madowga musharaxiintu waxa ay ku baaqeen deganaansho, waxayna xuseen in muhiim ay tahay in la helo doorasho dalka ka dhacda lana gaarsiiyo, taasoo ay sameynayaan golaha qaran ee la dhisayo ku baaqeen kuwaasoo iska dhex dooran doona guddoon iyo howlwadeenno howshaasi qabta. lama oga meesha laga aadi doono wadadan kala goyska, waxaase weli socda wadahadallo ay hormuud ka tahay beesha caalamka kuwaas ay ku doonayaan in dhinacyada siyaasadda ay ka wada hadlaan arrintaas doorashada Soomaaliya si looga gaaro go'aan mid ah loola helo doorasho wada ogola. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho. 4 sano ayaa ka soo wareegtay markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa uu muddo xileedkiisu dhammaaday iyadoo aanay jirin heshiis laga gaadhay hanaankii doorashada ee Soomaaliya. waxaana taasi ay ka bedelan tahay nidaamkii 20 sannadood ee ugu dambeeyay uu ku socday dalka Soomaaliya. sidoo kale waxa ay muddo xileedkan dhammaaday uu ku soo beegmay xasarado siyaasadeed iyo isfaham la'aan ka dhex taagan dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo aan wax heshiis ka gaadhin nidaamka doorashada. haddaba maxaa loogu yeedhayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib 8 February? muxuu dastuurku dalku ka qabaa arrintaasi? sidee looga fogaan karaa firaaq siyaasadeed iyo mid awoodeed? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi warbixintan ku eegaysa. dadka Soomaaliyeed qaarkood ayaa ku jahawareersan waxa loogu yeeraya madaxweyne Farmaajo kadib maanta madaxweyne hore mise mid xilka uu ka dhamaaday. baraha bulshada ayaa dadku u muuqdeen kuwa xaaladan ku cusub dhanna u dhaqaajin lahaa. ma jirin wax siyaasiyiin ama mas'uuliyiin dowladda ah oo dadweynaha uga warbixiyay sida xaalku yahay, waxaana dadka qaar ay dareemayaan cabsi ku aadan hubanti la'aanta haysata siyaasadda iyo hoggaanka dalka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi dheer ay VOA la yeelatay ayaa ka waramaya waxa uu aqoonsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ugu yeerayo kadib 8 Febraayo. maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu ahaa 8 February 2017 ilaa 7 February 2021. xilkiisii waa dhammaaday. mas-uul uma aha maanta jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed intaba waqti ay doorteen ku karaameeyeen ku sharfeen loo dhiibay xilligiisii intii uu jiray oo dhanna ma khalad la'ayn mana xumaan la'ayn, laakiin waxaa la ilaalinaya dhaqanka dowladnimada iyo dimuqraadiyadda oo xilligaas sharciga iyo dastuurka ay siiyeen madaxweynaha in loo daayo intuu joogo. laakiin xilligii haddii uu dhammeeyey dalkiina aanu ka saarin ama sida uga bixi lahay taladeed aanu haynin in lagu sii daawado oo dalka haddana qar kala dhaca ma aha. madaxweynuhu raalli oo ahaanaya muwaadin Soomaaliyeed waaye wixii maanta ka dambeeya muwaadiniinta Soomaaliyeed ka mid yahay, laakiin tala maanta uu dalkii oo kusii hayo oo sharciyadeed ma laha. Soomaaliya ma lahan dastuur adag iyo waxyaabo badan oo aasaas u ah ku dhaqankiisa, waxaase inta badan lagu wada joogaa isfaham iyo xal siyaasadeed oo maanta muhiim u ah dalka si looga gudbo taagtaagan siyaasadeed sida uu qabo Professor Afyara Cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar. dalku maanta runtii marka yani si loo fiiriyo sharci ah ama si siyaasi ah wuxuu ku jira xaalad siyaasadeed oo jahwareera oo aan yani loo baahnayn, waayo baarlamaankiina horaa waqtigu uga dhacay, madaxweynihina maanta waqtigu ka dhacay.
oo naxarinta jirta ama dhibaatada jirtaana waxay tahay heshiis siyaasadeedna lama hayo, maxaan ku idhaha doorasho oo asaga wax lagu bedelana lama hayo. marka ayadoon doorasho lahayn oon heshiis siyaasadeed lahayn ayaa waktigii dhacay. marka runtii waa xaalad aan fiicnayn, laakiin waxaan rajaynayaa in hab siyaasiya oo arrintan looga bixi karo la aadi doono, waana jiraan habab looga bixi karaa. firaaqa siyaasadeed iyo midda awoodeed ayay culimmada maamulka iyo siyaasaddu ku sheegeen inuu yahay dib u dhac, islamarkaana inuu khatar geliyo jiritaanka dal walba oo uu ka dhaco, waana sababta xal siyaasadeed loo baadi doono ka hor inta aanan lagu dhicin dabinkaasi. xildhibaan cabdishakuur cali mire ayaa qaba in madaxweynuhu xilka sii haynaya islamarkaana uu yahay madaxii dalka ilaa dalka doorasho ay ka dhacayso. in ayadoo dawlad waqtigeedii uu sii dhammaanayo ay suurtageli weydo in doorashada xilligii loo asteeyey ay dhici weydo, wax oo cusub ama dhacdo cusub oo ugub oo ama soomaaliya ku cusub ama adduunka ku cusub maaha, wax dhaca waaye. soomaaliyana waa ka dhacday in ayadoo madaxweyne xilka hayo doorashadii waqtigeedii uu dib u dhacay. wax oo mataqaanaa power vacuum ama firaaq siyaasi oo dhacayna ma jirine, doorashada intii ay ka dhammaanaysay continuation baa socday oo mataqaanaa madaxdii joogtaa sii joogtay. marka dhinaca dhaqan siyaasadeedkii hore loo yaqaanay iyo dastuurka iyo shuruucda annaka dee hay-adaha anaga dastuurga ay go-aamiyeen, marka saddexdaas qodoba la eego wax uu uga bedelaanayay madaxweyne maxamed cabdullaahi madaxweyneyaashii hore ma jirto. inta doorasho dhacaysana madaxweynaha xilka hayo oo mataqaanaa continuationka sii wadayuu ahaanayaa. sharciga iyo dastuurka iyo nidaamkiisa waa ka hadlay. buuqa hadda jira waa siyaasad, waa niman mucaarada oo xukun raba oo kursiga inay fadhiistaan raba. haddaba muxuu dastuurka soomaaliya ka qabaa markuu madaxweynaha xilka haya uu dhammaado muddaxileedkiisa dastuuriga ah? waxaa sharxaya garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cismaan qalinle oo sharciga ka dhigay jaamacadda minnesota, islamarkaana ka mid ahaa xeeldheerayaashii dhinaca dastuurka soomaaliya kasoo shaqeeyey, haddana ku sugan dalkan maraykanka. dastuurku wuxuu dhigayaa madaxweynaha soomaaliya in la doorto muddo 4 sano ah oo ka bilaabata maalinka xilka loo dhaariyo, sida ku qoran qodobka 91 ee dastuurka federaalka soomaaliya. marka muddaxileedka madaxweynuhu waa 4 sano weeyi. isla qodobka 87 faqradiisa 2 ee dastuurka ayaa waxay dhigaysaa madaxweynuhu dhammaan inuu xilkiisa u gudan doono si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. marka madaxweynaha sidiisaba 4 sano ayuu xilku kaga egyahay. marka dabcan dastuurku wuxuu markaa waajib kaga dhigayaa madaxweynaha oo ka mid a xilalka ama mas-uuliyadaha saaran inta uu xilka hayo inuu diyaariyo in doorasha dalka ka dhacdo oo uu shuruucdii loo baahnaa baarlamaanka loo gudbiyo, dhammaan adeegyadii loo baahnaa si loo suurtogeliyo doorasho xor ah oo xalaal ah in uu fuliyo waajibaadkiisa dastuurigaa bay ka mid tahay. marka dastuurku wuxuu ka qabaa in 4 sano ay ku eg tahay. inkastoo ay taagan tahay xasarad siyaasadeed, haddana waxay dad badani rajo ka qabaan in dadaalada beesha caalamka ee dhinacyadan la iskugu keenayo ay shaqeeyaan, islamarkaana lagu gaaro xal dalka gaarsiiya doorasho. dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin ah in waraysiyada madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo garyaqaan cabdiwaaxid cismaan qalinle oo dheer aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda haddii allaha awooda la noo saamaxo. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. dalka Jarmalka oo ay sanadahan dambe ku qulqulayeen qaxooti iyo magangalyo doon tiro badan oo ka hayaamaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika, Asia iyo bariga Yurub ayaa 5 sanaba mar waxay u tartamaan dadkaasi hogaanka golo loo sameeyay soo galootiga oo isku xira dadka ajaanibta ah ee dalka ku sugan iyo golayaasha dawladda looga taliyo.
dadka Soomaalida ee dalkaasi ku sugan ayaa sheegay inay la kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin sharciyada dhalashada oo ka raaga warqadaha guurka iyo cadeymaha kale oo ay dalkoodii kala yimaadeen oo inta badan aan la xaqiijin karin. Caruurta dalkaasi ku dhalata ee aan waalidkood sharciga haysan oo aan la siinin dhalashada wadankaasi iyo canshuuraha oo ay sheegeen in qof ahaan loo xisaabiyo xitaa haddii uu qofku shaqeeyo uu leeyahay xaas iyo caruur dalka u jooga. bartamaha bisha March ayaa la qabanayaa doorashada golaha soo galootiga oo ay sanadkan Soomaalidu rajo weyn ka qabaan inay xubno ku yeeshaan. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inuu haysa. Soomaalida oo sanadihii ugu dambeeyay dalka Jarmalka aad ugu badanayay ayaa doorashooyinka golaha ajaanibta sanadkan si weyn uga qayb galaya. Mustafa Cabdi Cali oo loo yaqaano Mustafa Future wuxuu ka mid yahay musharaxiinta sanadkan u tartamaya golaha soo galootiga. golahani waxa uu ka kooban yahay 7 xubnood oo ka kala socda 7 xisbi oo kala gedisan, waxaanay muddo xileedkoodu yahay muddo 5 sano ah. dadka sharcigu u ogol yahay in la doorto waxaa ka mid ah qof kasta oo ajnabi ah oo ka weyn 18 sano isla markaana buuxiyay shuruudihii looga baahnaa, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in qofku uu xisbi iska soo sharaxo isla markaana xisbigu soo gudbiyo waxyaabaha ay qabanayaan marka la doorto. waxaa ka mid ah golaha ajaanibtu waxa uu matalaa danaha ajaanibta ku dhaqan magaalada Kassel, waxa uu hay'adaha dawladda kala taliyaa dhammaan arrimaha khuseeya ajaanibta degan magaalada, waxa uu si toos ah ula shaqeeyaa guddi hoosaadyada golaha deegaanka oo kalfadhiyadooda uu ka qayb gali karo isla markaana kala taliya arrimaha ajaanibta khuseeya. goluhu waxa uu awoodda ugu weyn saaraa isdhexgalka ajaanibta kala jinsiyadaha duwan ee ku nool magaalada, waxa uu ka hortagaa cunsuriyadda iyo midabta koorka. sidaa darteed waxaynu odhan karnaa waa buundada u dhaxaysa qaxootiga, jaaliyadaha, xafiisyada dowladda iyo siyaasadda. Mustafa, maadaama golaha ajaanibta dalka Germany uu soo jiray muddo 40 sanadooda, weli ma jiraa dad Soomaaliya oo ku guuleystay hogaanka golahan ama xisbigan? ma jirto weli Soomaali ku guuleysatay inay hogaanka golaha qabtaan, waayo inta badan xisbiga majority-ga dadka hela ayuunbaa ku guuleysta hogaanka golaha. sida awgeed 5 sano ee ina dhaafay waxaa hogaanka hayay xisbiga G2000 oo u badnaa qoomiyadda Turkida oo 40% helay codadkii guud ee doorashada, halka Soomaalidu ay heleen 5% isla markaana u dhiganta 2 xubnood. balse waqtigaasi dadka oo aad u yaraa iyo aqoon darro naga haysatay qaabka loo codeynayo darteed ayaa sababtay inaanu dad badan soo saari weyno, taasi oo aanu sanadka diyaar garow badan ka sameynay. Mustafa, maxaa looga baahan yahay qofka noqonaya musharaxa? Sahray walaal, waxaa looga baahan yahay qofka musharaxa ah inuu yahay qof wadanka degan isla markaana ajnabi ah, sidoo kalena waa inuu ka mid yahay xisbi, waxaana loo codeynayaa sidii caadiga ahayd ee sanduuqa lagu ridayay warqadda codbixinta, waxaana isla hal maalin dhacaya doorashada golaha ajaanibta iyo sidoo kale doorashada golaha deegaanka oo 14 bisha Maarch ka dhici doonta magaalada Kassel. sidaa darteed maadaama oo uu weli jiro cudurkii koronuhu, waxa uu ku codeyn karaa qofku boostada isagoo dalbanaya warqadda codbixinta ka hor maalinta codbixinta oo ku beegan 14 Maarch 2021. ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa dadka Soomaalida ee ku dhageysanaya? waxaan kula talin lahaa walaalahayga Soomaaliyeed inay codkoodana siiyaan. annaga oo dhan qofku waxa uu xaq u leeyahay inuu bixiyo 37 cod, balse aanu 2 xisbi wada siin karin. waxa uu se siin karaa codadka shakhsiyaad. anigu waxaan ka sharaxanahay xisbiga Zukunftlis ee loo soo gaabiyo ZLK, waxaana magaca ii qoran yahay Ali Mustafa oo waxa la soo hormariyay magaca awowgay. waan u mahad celinayaa qof kasta oo codkiisana siiya isla markaana nagu taageera hawsha aanu ku jirno. inkastoo dalka Jarmalku tobanaankii sanadood ee ugu dambeeyay uu u soo dabcay dadka soo galootiga ah oo uu ku biiray wadamada reer galbeedka ee magangeliyada siiya soo galootiga, haddana magangeliyadoonka Soomaalida ah dhibaato ka duwan kuwa dalalka kale ayay qabaan, maadaama oo gobolada dalka Germany badankoodu aanay aqoonsanayn waraaqaha ka soo baxa dalka Soomaaliya. Maryan Shariif Axmed waxay dalka Germany ku nooshahay muddo 22 sanadood ku dhow, waxaana dalkaasi la geeyay iyada oo 5 jira. Maryan, sida ay VOA-da u sheegtay, waxay dhibaato badan u soo martay sidii ay dhalashada wadankaasi ku heli lahayd, taasi oo markii dambe u suurto gashay muddo haatan laga joogo 2 sanadood iyo badh. waa mahadsan tahay walaal. maxaa waaye ani markii koowaad aan programkan isku sharaxayo, maadaama aan arkay Soomaalida ee wadankan iyo gobolkan ku badanayaan, ina loo faa'iideeyo yani gabar Soomaali oo maanta meesha ku jirto male. marka aniga meesha isku soo sharaxay dadka wixii inta oo Soomaalida ay degan yihiin loo Maryan, bal caqabadaha ugu waaweyn ee dadka soo galootiga ah ay kala kulmaan Germany gaar ahaan gobolka degan tahay nooga waran. maxay dadka ku xujiyaan waxa document dhan Soomaali
oo dhan ma aqoonsanayno marka dokumentyaashii ilmihii inta lagu dhale dhalasho lama siinayo dadka inta labada isqabto guurkooda mala aqoonsano ma isguursan karaan document Somali sharci male dhinaca canshuurta labada yacni faamilka ninka du shaqeynay maxaa loo xisaabay inuu qof single oo kale u shaqeynay yacni waxyaalo dhibaatooyin badanna halkan ka socda oo Soomaalidii ku dhibaato qaban waxna yacni isbedelane loo baahan yahay taasna dadaal dheeri u baahan tahay marka Maryan doorashadan rajaynta leeg bad ka qabtaa haddii saad ku guuleysato maxaad isleedahay Soomaalida waad ka caawin kartaa ama dadka soo galootiga ah oo dhan yacni intii wixii aan tabarteedii aan ka caawin karo aan ka caawina arrintan hadda oo DNA-ga arrintan oo document kan waa tan ugu daran waay yacni ilmo inta ku dhalanayaan oo dhalasho la siinaynin weligiisa yacni ma la maqlin inkastoo Soomaalida ku dhaqan wadamada Scandinavian-ka Britain Canada iyo Mareykanku ay kaalin muuqato ka galeen golayaasha looga arrimiyo wadamada ay u qaxeen haddana Soomaalida Jarmalka ku nooli weli fursadahaasi ma helin waxaana haatan u xusul duubayaan sida ay uga soo dhex muuqan lahaayeen hoggaanka golaha ajaaniibta oo ay kula loolamayaan kumanaan musharaxiina oo ka soo kala jeeda daafaha caalamka afhayeen u hadlay shirkadda samaysa dawooyinka dalka Britain ayaa sheegay in talaalka ay sameeyeen jaamacadda Oxford iyo shirkadda laga leeyahay dalka Germany oo u muuqdo mid wax yar uu ka taraya xakamaynta fayraska xanuunka COVID-19 gaar ahaan qaybta laga helay dalka Koonfur Afrika oo meelo badan oo caalamka oo Britain ay ku jirtana soo gaadhay warbixintan ayaa soo baxday maalintii Sabtidii kadib markii jariiradda The Times ay daabacday inaanu talaalkani waxba ka tarayn nooca cusub ee xanuunkan ay ka soo bilaabmay dalka Koonfur Afrika warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil haddii arrintan la xaqiijiyo waxay dhabarjab ku noqonaysaa dadaalka Britain ay ugu jirto xakamaynta xanuunka noocan soo gaadhay ee markii hore lagu arkay Koonfur Afrika jariirada The Times ee ka soo baxda magaalada London oo markii hore warbixintan qortay ayaa ka soo xigatay bilowga tijaabooyinka ay sameeyeen jaamacadda Oxford oo Britain ku taala iyo jaamacadda Witwatersrand oo ku taala dalka Koonfur Afrika shirkadda AstraZeneca oo ka jawaabtay warbixintan ayaa afhayeen u hadlay waxa uu sheegay in tijaabooyin la sameeyey ay horaantooda muujiyeen in tayada talaalka ee xanuunkan cusub ay yar tahay laakiin afhayeenkaasi ayaa sheegay in weli baaritaan uu socdo dadka talaalka lagu tijaabiyeyna ay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo caafimaad qaba shirkaddu waxaa kale oo ay sheegtay in ay aaminsan tahay in talaalku wax badan ka tari doono xanuunka noociisa khatarta ah marka la eego sida uu u difaacayo xanuunka qaybihiisa hore waxaa kale oo shirkaddu ay intaasi raacisay inay ka shaqaynayso baaritaano ay ku doonayso inuu talaalku waxtar buuxa yeesho haddaba saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa dadaalka loogu jiro la dagaalanka xanuunka COVID-19 noociisa cusub haddii uu talaalkani wax tari waayo Dr. Maxamed Cadiid Hore oo dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaan su-aashaasi weydiiyey su-aasha haddaan isku dayo inaan ka jawaabo waa run dib u dhac bay ku noqonaysaa qorshihii ama barnaamijkii dadka lagu talaalayay nuqulkan cusub ee lagu arkay qaybo dunida ka mid ah siba khaasatan South Africa oo aanu talaalkan maxaa la yidhahdaa Oxford AstraZeneca ama Pfizer khaasatan Oxford AstraZeneca la sheegay inaanu waxba ka tarayn marka waxay noqonaysaa in haddana nuqulkan shirkado kale ama loo sameeyo talaalo kale saas lagu socdo oo matalan sanadaha soo socda inta macluumaad ku filan laga helayo viruskan oo xog dhammaystiran laga helayo inay waxay noqonaysaa in marba nuqulkii yimaadaba in talaal kale loo diyaariyo marka dib u dhac bay keenaysaa laakiin ma aha wax yacni ilaa hadda laga rajo dhigay in talaalkii uuna shaqaynayn oo aanay maaragtay talaaladii lagu howlanaa iyo dadaaladii aanay waxba tarayn noocyada xanuunka COVID-19 ay saynisyahanada Britain iyo dhakhaatiirtu ka warwarqabaan waa labada nooc ee laga helay Koonfur Afrika iyo Brazil shirkadaha kale ee iyaguna talaalada sameeyay sida Johnson iyo Novavax ayaa iyaguna sheegay in talaaladoodu ay saameyn yar ku yeesheen difaacidda xanuunka nooca cusub
talaalka johnson ayaa boqolkiiba 75 saameyn ku yeeshay xanuunka, halka waxtarkiisu yahay maraykanka boqolkiiba 72 iyo boqolkiiba 66 wadamada latin america. shirkadda novax ayaa iyaduna sheegtay in tijaabooyinkii lagu sameeyey talaalkooda waxtarkiisu markii britain lagu eegay uu noqday boqolkiiba 89.3, halka koonfur afrikana uu noqday boqolkiiba 50. waxtarka u dhexeeya labada dal ee uu talaalku sameynayo ayaa warwar weyn ku abuuray saynisyahanada. shirkadda moderna ayaa iyaduna sheegtay in talaalkoodu markii la tijaabiyey isqacaabinta xanuunka uu muujiyey inuu aad u yar yahay weliba ka cusub ee laga helay ee koonfur afrika. cabdixaafi dacwin ismaaciil, v o a london. haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuura. kolkii hore kalgacalka kolkii hore kalgacalka kadiska igu dhibtayeed kabatidhi sidii malab kabatidhi sidii malab markuu yimid karkaarkii uu kaba hafaygiyo markuu yimid karkaarkii uu kaba hafaygiyo intuu kaabigay sudhay kashayga soo baxay intuu kaabigay sudhay kashayga soo baxay maxaa helay kaskaagii ama kohashadeeni maxaa helay kaskaagii ama kohashadeeni sheekadu makow iyo kun habeen mid socotaa kun habeen mid socotaa sheekadu makow iyo kun habeen mid socotaa kun habeen mid socotaa dantiyaynu kaabniyo jacaylkeennii soo koray markuu kaabigii yimi dantiyaynu kaabniyo jacaylkeennii soo koray markuu kaabigii yimi kayd loogahayo kadabaadhe mooye kayd loogahayo kadabaadhe mooye cashaqi kor loo rarayay kaynaan dibyo celiyey. guud ahaana idaacaddeenii aroornimo dhegaystayaal waa naga intaa. waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuuriya anigoo ah falastiin axmed iimaan. intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgeliyo. kadinka waahaad u bixisaa kadinka waahaad u bixisaa haddana waad ka odaa sheekadu makow iyo kun habeen mid socotaa kun habeen mid socotaa kadinka waahaad u bixisaa haddana waad ka odaa sheekadu makow iyo kun habeen mid
mid socotaa kun habeen mid socotaa